السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Cabdi Jubbaar Sheekh Axmed. fadlan ku soo dhawaaw barnaamijkan aan kaga hadli doono sida saxda loo sameeyo CV. dabcan waxyaabo badan waad maqashay, marar badan waad maqashay CV. dabcan CV-ga waqtiyo gaar oo la sameystaa jirto. mar walbana waxaad u baahan tahay inaad samaysato CV sax ah oo shaqo aad ku raadsan karto. goorma la sameystaa? maxaana loo sameystaa CV? dabcan CV waxaa la sameystaa markaad shaqo raadinaysid. goorta la sameystana waxa waa mar alaala markaad u baahato inaad shaqo raadsatid. CV waxaad u baahantahay CV inaad samaysatid. waxa kaloo jira waxay tahay CV, erga CV waxaa laga soo gaabay curriculum vet. CV waxaa laga soo gaabay erga loo yaqaano curriculum vet. waxa kaloo jiro CV-ga wuxuu ka kooban yahay ilaa 7 qodob oo qodob walba aad u baahan tahay inaad si fiican u qeexdo kale. qodobada macnaheedu mataqaana maartay u baahan in si fiican loo qeexo waxaa kamid ah personal data. sidaad u taqaano personal data. dadka inta badan waxay isku qaldaan laba shay. labada shay waxay tahay personal data iyo profile-ka isku qaldaan. inta badan ha isku qaldin. profile-kan ha soo hormarin mar walba profile-ka qaybtan ku qoraysaa. waan ka hadli doonaa farqiga u dhaxeeya profile-ka iyo personal data. personal data waxay tahay waa basic information. dhinaca kale hadaan u qaado waa faahfaahinta aasaasiga ku ah. faahfaahinta aasaasiga ku ah waxay tahay magaca oo ah mataqaan qofka magaciisa inuu meesha ku qorto. tusaale ahaan Faaduma Sabriya. gender qofka macnaheedu mataqaana maartay rag iyo dumar wuxuu yahay waa inuu ku qoraa. rag iyo dumar waxa tahay waa inaad ku qortaa. nationality dhalashada waa maxay? Soomaali ma tahay, Norwegian ma tahay, American ma tahay, maxay tahay adiga? language spoken luqadaha qofka ku hadla maxay tahay? English, Somali oo ah mother tongue, Arabic and little Kiswahili iyo Swahili inuu ku hadlo. qofka asaa yaqaan luqadaha ku hadlo iyo luqadaha uusan ku hadlin. anshax daran ha ku qorin CV-gaaga. CV-gaaga waxaa loo baahan mar walba inaad ku qorto wixii sax ah. haddaadan ku hadlin luqadaha oo si fiican luqadaad si fiican uga hadashay luqada kale kala saar. haddaad Soomaaliga si fiican uga hadasho kaleeto oo luqadaad hooyo inaad ku qortaa mother tongue waa luqadii hooyo, afkii hooyo. Arabic waa inaad mataqaan haddaad taqaan waa inaad ku qortaa. haddii luqada aad wax yar ka taqaanid sida little wax yar haddaad ka taqaan waa inaad wax yar ku qortaa. phone number, telephone number-ka waa inaad ku qortaa. halka lagaaga soo xiriira interview-ga markii lagu baahdo kaleeto. email-ka halka warqad lagugu soo diraayo haddii interview lagaaga baahdo kaleeto. qaybtaas waa qaybta personal data. qaybta profile-ka maxay tahay? qaybta profile-ka waxay tahay waxa qofka uu ku qorayaa shakhsiyadda qofka uu yahay. shakhsiyadda uu qofka uu yahay khaasatan CV-ga markii la aqriyo qaybtan markii si fiican loo aqriyo waxaa la qeexayaa qofkan inuu shaqadan u qalmiyo in kala. waa meesha tusaalooyinka fiican laga qaadan karo. waxaa kaloo jiro profile-ka qaabka loo qaxay balaan aragna halkan. waxaa halkan la yiri waa qof akhlaaqiyin ka dhisan xitaa xirfadana wato. wuxuu kale aqoon u leeyahay maamulka wuxuuna wataa xirfado good management skill, knowledge and skills. xisaabaadkan waa aqoon u leeyahay xirfadana wuu wataa. wuxuuna leeyahay waa waqti qof macnaheedu mataqaana aad u shaqeyn karo waqtiyada xakirka ah under pressure markuu jiro kale. qofkan kale wuxuu leeyahay teamwork with ability to work effective under little or no supervision. waxa kale qofkan oo u leeyahay aqoon inuu yahay qof awood u leh inuu shaqeyn karo oo si fiican effectively u shaqeyn karo aanan u baahnayn wax supervisor oo control oo ilaaliya. waxa kale jira excellent cultural experience. dabcan caalamka waxa loogu jeclaa waa laba shay. labada shay waxay tahay qaasatan 3 shay aan ka dhigo. disciplinary skills waa inaad aqoonta cilmi waa in akhlaaqda aad aqoon u leedahay. 2 waa inaad xirfad leedahay. 3 waa inaad dhaqamada caalamka ka jira waa inaad aqoon u leedahay. ma ahan dhaqankaaga oo kaliya waa inaad fiirin dhaqamada kale waa inaad respect xishmad weyn aad u muujin kartaa. career objective-ka waxaa la yiraahdaa shirkadda markaad shaqada ka raadsanaysid mise ururka shaqada ka raadsanaysid waxaa loo baahan website-yada inaad booqatid waa inaad ogaatid hadafyada u yaala. bayaanka hadafku maxay tahay ururka u yaala. bayaanka hadafku waa inaad soo aqrisaa. adigoo soo aqriyo waa inaad halkan imaada kadibna aad macnaheedu mataqaana aad qortid aad leedahay aligned with overall analysis of organization in dynamic challenging environment. so waa inaad qeexi kartaa guud ahaan mataqaana maartay inaad kala shaqeyn kartaa xagga dynamic challenge environment markuu ururka wajahayo caqabado adag xagga bey'ada oo kale. ururka wuxuu soo wajihi karaa dhaqaale ahaan xagga siyaasadda dhinac walba inaad la garab taagantahay oo kale. valuable education skills inaad aqoontaada macnaheedu la imaan doontid xirfadahaaga xirfadeed aad mataqaana kor u sii qaadi doontid. provide professional career mataqaana xirfadahaaga
mustaqbalka oo kale waxa kale jiro waxay tahay working wholeheartedly toward achieving the organization set goals by contributing as much as I can waxa kale balan qaadaysa in hadafyada ururka uu leeyahay inaad kala shaqeyn karto si alaala si aad awoodid qaybta kale waxay tahay working experience waa inaad qaybtan ku qeexdid si fiican waa inaad u qeexdid interview waxa kaaga imaan karo waxa lagu leeyahay meeqa ka soo shaqeyso hal sano maxay tahay sababta ugu shaqeyso maxay tahay sababta shaqada ugu tagtay xagga interview hadhow markii lagu yeero meeshan su'aalooyin badan kaaga imaan karo waa inaad si fiican u qeexdid aadan si sax ah u qeexdid maxaa yeelay CV-ga markay been ku jirto iyo markay anshax darro ku jirto si fiican baa loo fahmi karaa waana la qeexi karaa qofka CV-ga aqoon dheer u leh si fiican u fahmi karaa English teacher tusaale ahaan وقفك وحاول شقوين كwork experience وكاست وحتى English إنه معان English وأنجلي وكسر شقين كتير أوروكا لو يقان أدرى جوابتنا إهد صنعاء إن سنة كمركو أهل المتقن لبضو كون يسديد لبضو كون سكال كتور لحيسا كل وحدو قيحيسا قاب كاسوقاليتا قيب والبن حاول راعنيسا إن شقادة وحي إهد أوروكا لسو شقيسي إيو جوابتي إهد إيو متقن ما أرتي سنة كوها سيدو قالت وإنا نصفي عنو قيحديد institution attended with the highest education maxay tahay aqoontaada dheer aad leedahay aqoonta ugu sareysa aad leedahay maxay tahay tusaalahaan halkan waxaa ku qoran bachelor degree for international business management in Lebanon International University Sanaa Yemen between 2009 2012 waa inaad qeexi kartid maxaad haystaa bachelor degree bas maahan inaad ku qorto waa inaad ku qorto bachelor degree-ga jaamacadaad ka baxday iyo wadanka uu ahaa iyo sanadka uu aad mataqaanaad bilowday sanadka dhameeyay waa inaad hadana saas u qeexdaa an accounting diploma graduated from Gate University College in Addis Ababa and Ethiopia between October 2013 and finished March 2014 waa inaad goobtana saddex u qeexdaa jaamacadda qeexdaa sanadka uu ahaa waa inaad qeexdaa MBA Master of Business Administration plus postgraduate diploma oo qofkan haystaa international business management oo ka haystaa oo kaga baxay Hindiya jaamacaddu Hindiya ku taal inuu kaga baxay ma arday sanadka markuu ahaa intuu dhaxaysay 2015 ilaa 2016 inuu hal sano uu ku qaatay masterkiisa waxa kale oo jirto professional and training qualification qofku muxuu soo qaatay seminaarada uu soo qaatay maxay tahay sidoo kale seminaarada sidoo kale ay u qeexdid tusaale ahaan logistics management for professional certificate in University of Tuka Mogadishu Somalia August 2015 waa in and si fiican u qeexdid logistics management sida kala u taqaanida supply chain management oo isku wada mid waa inaad tusaalahaan waa inaad qeexdid halka aan ku qoro kale waxaan iri University of Tuka jaamacadda qofka uu ka qaatay waxay ahayd Tuka goobtan waxay ahayd Muqdisho Soomaaliya sanadka markuu ahaa 2015 August oo waqtiga seminaarka uu qaatay sidoo kale saas camalad u qeexaysaa qayb walban waxaa loo baahan yahay in si diiran u qeexdid oo kale waxyaabaha aad leedahay qualification-ka seminaarada aad soo qaadatay qayb walban waa inay noqotaa si fiican goobta waqtiga qaadatay taariikhda sanadka wax walba waxa loo baahay inaad si fiican u qeexdid maxaa yeelay waxaas oo dhan waxay ka saacidaysaa inaad tahay qof noloshiisa la cabiri karo waqtigiisa inuu yahay waqti inta badan waxbarasho soo qaatay inuu waqtigiisa uu yahay waxa dhan waa inaad saas u qeexi kartaa references waxay tahay waxa ku qoraysaa qof la yaqaano kale magaciisa saddexan maxaa la yiraahdaa telephone numberkiisa emailkiisa qof la yaqaan oo adiga ku yaqaan maxaa yeelay haddii aad ku qorto meeshaas qof la yaqaano kale adiga qofkaas uu ku yaqaano macnihiisu waxay tahay qof adiga xataa qof la yaqaan maadaama qofkaas ay istaqaanaan qofku wuxuu noqon karaa qof walba qof wuxuu noqon karaa oo mas'uul shirkad ka ah qof wuxuu noqon karaa professor jaamacad ka ah qof macallin dugsi ka ah qof nooc walba noqon karaa marka waxa kale hadaadan hayno qofka magaciisa saddexan iyo hadaadan hayno waxaad ku qori kartaa available open request wax kale lama taqaana maad waa macquul inaad weydiistaan ma taqaana maad waa in qaabkaas u sharxid dabcan waa in faahfaahintaada CV-ga waa inay noqotaa qaab la fahmi karo oo la qeexi karo mar walba waxaa loo baahan yahay CV macquul inaad samaysatid si shaqadaas si aad u noqoto shaqadii adiga kugu habooneed mar walba insha Allah haddii ilaad maxaan jeclahay si fiican aad ugu fahantay waxaan jeclahay wixii su'aal aad qabteen insha Allah emailka ay ugu soo gudbi insha Allah haddii ilaad maxaan jeclahay inaan kaaga soo jawaabo waad mahadsantihiin waxaan jeclahay inaad sidaas kaga tago assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh